bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada dhammaan asxaabta meel waliba dunida aad ka joogtaan magacaygu waa maxamuud youtube channelkeygana waa injineer maxamuud waa mar kale iyo muuqaal cusub insha allah muuqaaladan waa muuqaalkii markaasi taxanaha ahaa ee kuna saabsan maadada teknolojiga ee fasalka lixaad ee dugsiga dhexe casharadan halkan soo gelin wuxuu markaasi toos u anfacayaa ardayda dhigato maadada markaasi teknolojiga ee dugsiga dhexe fasalka lixaad daawada haddii uu muuqaalkan kusoo gaaray la garaysay dhiirigelin inoogu noqoto gooja badhanka subscribe gambaleelkana furo si aad markaa u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino weli waxayna markaasi bartanka kaga jirnaa ee cutubka koowaad ee maadada teknolojiga fasalka lixaad waxaa markaasi muuqaalkani aan ku qaadan doonaa casharka labaad ayaynu ku qaadan doonaa ee maadada teknolojiga ee dugsiga dhexe casharka labaad ciwaankiisu wuxuu noqonayaa kaamirooyinka ilaalada ayaa loo yaqaanaa kaamirooyinka ilaalada sida aad muuqaalkan kaga jeedaan waxaa markaasi halkan yaalo kaamirooyin oo loogu talagalay markaa in lagu xiro goobaha markaasi dhismayaasha sida waxaa ka mid ah hoteelada dugsiyada waxbarashada iyo markaasi bangiyada xawaaladaha ayaa ka mid ah cashirkeenana waa cashirkii labaad ee maadada teknolojiga ee fasalka lixaad dugsiga dhexe kaamirooyinka ilaalada waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo guryaha iyo goobaha bulshada ku kulanta sida dugsiyada isbitaalada hoteelada iyo wixii lamid ah kaamirooyinka ilaalada waxaa lagu dhejiyaa bannaanka hore ee dhismayaasha wadooyinka xafiisyada dhexdooda bangiyada garoomada diyaaradaha iyo wixii lamid ah ujeedooyinka loo isticmaalo waxaa markaa ka mid ah lambar 1 in markaa lala socdo dhaqdhaqaaqa tuugada iyo burcadda isku dayda in ay dhacaan bangiyada xawaaladaha goobaha waaweyn ee ganacsiga iyo wixii lamid ah lambar 2 waxaa ka mid ah in lala socdo dhacdooyinka ka dhaca wadooyinka sida shilalka khilaafka nidaamka wadooyinka iyo wixii lamid ah lambar 3 in lala socdo si guud ah nabadgelyo iyo badqabka shacabka beejka 7 isna waxaynu ku baran doonaa casharka saddexaad ee maadada teknolojiga ee dugsiga dhexe ciwaankiisana wuxuu markaasi noqonayaa qalabka lagu baaro birta oo loo yaqaano security ayaa loo yaqaanaa sawirkiisana waa kaa qalabkan waxyaabaha loo adeegsaday halkan ka baran doonaa waa qalab loogu talagalay in lagu baaro qofka agabka uu wato qalabkan waxa uu sheegaa birta sida furaha saacadaha iyo wixii lamid ah wuxuuna bixiyaa jabaq cod ayaa loola jeedaa sheegaya in walax bir ah uu wato ama ay ku jirto dharka qofka sida jeebabka iyo wixii lamid ah qofka ma gudbo ilaa laga hubiyo in uusan wax dhib ah u keeni karin dhismaha uu rabo in uu galo arrintaas waxa ay waxtar weyn u tahay dhammaanteen ay waxtar weyn u tahay waxaana habboon in aadan diidin in lagu baaro oo dhaqan wanaagsan aan kula dhaqanno baarayaasha qalabka waxaa wax ku baara ilaalada jooga albaabada laga soo galo dhismaha la ilaalinayo sida waxaa ka mid ah hoteelada bangiyada xawaaladaha wasaaradaha xeryaha markaasi ciidamada iyo wixii lamid ah insha allah cashirkeenana halka ayuu ku egyahay waa anigoo ah injineer maxamuud oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu